رئيس الوزراء حسن علي خيري يبش عالمك وكوضع الله دورشوينك الصومالية maxaa ka jira ra'iisul wasaaraha Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre iyo beesha caalamka inay ka wada hadleen doorashooyinka Soomaaliya sida midowga Yurub, IGAD, qaramada midowga Yurub, Turkiga, Ingiriiska iyo Mareykanka. Waanti wacan wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka maanta in ku falanqeyn doono kulanka ra'iisul wasaare Khayre iyo beesha caalamka. ra'iisul wasaaraha Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre iyo mas'uuliyiin ka socotay midowga Afrika, IGAD, qaramada midowga Yurub, Turkiga, Ingiriiska iyo Mareykanka ayaa barta internetka ku yeeshay kulan heerkiisu sareeyo oo looga hadlayay arrimaha Soomaaliya. Kulanka ayaa looga dooday horumarka ay ka sameysay dawladda Soomaaliya intii ay talada haysay, caqabadaha jira iyo tallaabooyinka xiga ee dib u kabashada dalka. sidoo kale ra'iisul wasaare Khayre waxa uu sheegay in hoggaanka dalka ay ka go'an tahay dib u habeynta hay'adaha dawladda iyo in lagu taagnaado wadada dib u kabashada dhaqaalaha iyo waliba in lagu guuleysto Soomaaliya nabad iyo barwaaqo ah. dhammaan mas'uuliyiinta ka qayb galay kulanka ayaa ballan qaaday in ay sii wadi doonaan taageerada dawladda Soomaaliya ay la garab taagan yihiin si loo gaaro himilooyinka ummadda Soomaaliyeed ayaa lagu yiri war ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha. dhanka beesha caalamka ma jirto wax wara oo ka soo baxay kaas oo looga hadlay kulankii xalay ay la qaateen ra'iisul wasaaraha Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre oo looga hadlay arrimaha doorashooyinka iyo xakameynta xanuunka coronavirus. dawladda Soomaaliya ayaa siyaasiyiinta iyo madaxda xisbiyada dalka waxa ay ku eedeeyeen in ay dadaal ugu jiraan sidii ay dib u dhigi lahaayeen doorashooyinka dalka marka la gaaro dhamaadka sanadka 2020 waxa ayna ka digeen in ay dhacdo wax muddo kororsi ah. guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka ayaa dhankooda sheegay inaysan dhici doonin muddo kororsi, doorashaduna ku dhici doonto waqtigii loo qorsheeyay doorashada Soomaaliya. dhanka kale qaar ka mid ah dawladaha caalamka ayaa doorashooyinka dib u dhigay halka kuwa kalena loo dareeray goobaha codbixinta xilligan oo adduunku dagaal kula jiro xanuunka safmarka dilaaga ah coronavirus.